بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجكي سirta qalinka xalqadii 11aad oo ay maanta marti noogu tahay iskuma jiraan qoraayada ee maanta waa iqra cayn waxaa sharaf noo ah in iqra aad maanta barnaamijka naga aqbashay sida caadada ahaydna waxaa dhinaceena kala jooga oo barnaamijka ila daadihinaya wasiir guuleed qaasim oo barnaamijka qayb ka ah iqra soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow aad u mahadsantahay cabdifataax adiga iyo wasiirkana waa idin wada salaamaya dhammaantiin farxadeena ii tahay inaan barnaamijka maanta ka qayb galo oo aan qayb ka noqdo marka aad u mahadsantihiin guuleed intaana barnaamijka gelin bismillah salaam السلام عليكم ورحمة الله شعبك الصوماليات نلقى أجوكان دبتي لي هذا أنا جي ودني ستة طريقة وحابب مودة الله وصدح بالوضعي عبد الفتاح إن نكسحني لكن إن شاء الله وأن هذا ذلك نقص الله بنينا أنت بدنا حوج وحان صارنا إن ورئيسنا مركين نقطة ستة طريقة إن وقتها لو قد يدقن أنت لا خابي بين قنايا luqado badan baa jira caalamka hadii la fiiriyo taariikhiyan tirtirmay dad badan oo dee faracoodii weli joogaan laakiin magac kale leh luqad kale ku hadla diintii laga bedelay muuqaalkii laga bedelay oo si kasta loo bedelay marka ummadda soomaaliyeed intaas oo sano oo gumaysi ah ayaa dul saarnaa intaasoo mawjado oo galbeed iyo maaragtay ajnabi ayaa u yimid صدركي سنة لصور دافي بعد البركي يدور دبلوماسي وحنا كلنا يسبدل آل وتربضن لكن إنتاز أي شعورتي كرتيد الشعب كان وانا أرجنا واللغة دودي دهن كودي ولا بقيين دبد إنترنت شوكتنا وانا أرجنا عيال كني الصومالي وقهضيان ولو حوجها نوقتي وحلقوا صوت الدرجة لكن دهن كودي واهستان دين تودي واهستان وانا أوجي إني صوماليين marka anaga waxa mar walba sharaf inoo ah inaan diiradda saarno mudnaanta aan siino luuqadeeni marka luuqadu haddii aan tusaale u qaadano luuqadda af carabiga ah way kala badnayd kala nooc bay ahayd laakiin kitaabka jaamacada ee qur-aanka markii uu soo degay luuqadii ayaa mid noqotay qoraalkaasay mid isugu noqdeen ilaa haddana af carabigaas markay kulmaan wadamada kala duwan af carabigaas bay ku hadlaan taasaa u noqotay lafdhabar luuqadiina waxay ku badbaaday dhaqangelintii diintan marka qoraalku marka wax la qorayo waa inaan moogtahay sunnadaas qaadano marka wax la qoro luuqadii baa sii raagayso oo sii moogta cusboonaanayso waqtiga la qabsanaysa mandaqada way isbedeli luuqadii in yar way isbedeli isbedel baa ku imaanaya kelmado cusub bixintaasi way iska jirtaa laakiin mar kastaba buugaagta aan reebno way luuqadeena iyo dhaqankeena leeyihiin Soomaali waa dad la yiraahdo kelmad Ingiriisna u isticmaalo oral ah laakiin waa laga gudbay oo waxa uu moodaa dadkii hore kartidoodii inay naga tagtay marka bal qoraalkii aan luqadda ku xusno dadkaasi ayagoo wax qorin bay luqadda ilaaliyeen marka maanta waxaa sharaf inoo ah walaasheen oo buugaag kala duwan qortay siyaasad iyo cimilada iyo geography ay ku jiraan marka sharaf bay inoo tahay inaad barnaamijka laga soo qayb qaadatid aniga cabdifataax waxaan dhinacna dambiilayaal baan nahay anagoo wax isku dayayna inta badan niman baan waraysanaa marka maanta wax badan baad naga asturaysaa walaashay soo dhow mar kale aada u mahadsantihiin cabdifataax iyo guuleed qaasimba waa idiin mahad celinayaa fursadda ama shaqada aad haysaan oo bulshada u haysaan mar walba waxa mudan in la idinkaga mahad celiyo waayo waxaad haysaan shaqo yacni ay mudnayd bulshadu inay qabataan idinka isku xil saaray marka aad u mahadsantihiin waana idin soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba middan ah haweenkaana horta maanta anaa jooga berrina waxaan rajaynayaa inay saaxiibaday kaleeto ay marti ka noqon doonaan barnaamijka oo iyana waqtigooda ay qaadan doonaan
marka maantay anaa u hadlaya ما شاء الله ما شاء الله والآن قلنا مركب برنامج كنا سؤال شيء أقولك عبد الفتاح أنا سوي شيء أنا هو حان روا السؤال بلارين أنا ويديو لكن هذا معلنا سؤال صوتي عصري سولو su-aasha ugu horeysa oo inaan horta in yar soo koobno su-aasha iqray u taallaa oo weydiin doonaa insha allah laakiin horta waa tuma qoraa iqra cayn cayn iqra waxay ku dhalatay magaalada boosaaso gobolka bari iqra waxay waxbarashadeeda asaasiga kusoo qaadatay isla magaaladaas ilaa dugsi sare uga soo baxday waxay jaamacad heerka darajada cilmiga heerka koowaad ay ku haysataa afka iyo suugaanta sidoo kale cilmiga fayadhowrka ayay ku haysataa waxaa intaas u dheer iqra waa isxilqaantay iyada ayaa ah activist ama qof u ololeysa arrimaha bulshada wacyigelisa dhalinyarada blogyo badan ay horey wax u qortay waa jiraan oo qalinkeeda ma ahan keliya saddexdan buug ee buug ahaan usoo baxay waxaa intaas dheer waa saxafiyad xubin firfircoonna ka ah naadiga qalileyda soomaaliyeed Somali Pen bugaagteeda maanta waa dul mari doonaa insha allahu tacaala qalindaarkeeda ayaan xooga saari doonaa insha allah waxay qortay oo hadda buug ahaan banaanka u yaala saddexda buug oo aad sheegtay wasiir guuleed sida kii barwaaqo laga baahan yahay cinwaanada cajiib ah hogaamiye lagu hobmay iyo isbedelka cimilada marka iqra markale soo dhawow haddii intaasi laga gudbo iqra qof ahaan waa tuma iqra cayn cayn magaca cayn caynsa siduu kuugu baxay cabdifatax aada u mahadsan tahay yacni xogtayda ama warbixintayda waa intaas uun keliya waxaa ka tagtay buugga hogatus oo isna ku jira iqra cayn cayn waa gabadha ujeedaan oo da'yarta oo weli aan waxa waaye waqti badan jirin waan rajeynayaa inaan taariikh badan sameeyo ama wax badan oo bulshadeeda manfac u ah inaan u samayn doono haddii ay baqadaro iqra cayn 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 waa family name ama waa magaca awowgay naanaysta awowgay marka saas un baan ku wataa moogiya naanays aniga ii gaar ah ma aha marka soo dhawow سؤال هدان كويدية مركب والحار براتي وانكو أرقنا قف وحاتي ديار سنو في فرعون هولا كلا أقلي كتي بزنس بأقلي كتي جناعسي يو كستا أقلي كتي maxaa kugu kalifay horta inaad ugaa qortid inaad moogtahay suxufi noqotid adoo shaqooyin kala qabsan karin guleed aad u mahadsan tahay yacni inaad qoraan noqotid aba inaad yacni bulshada aad wax u qabatid waxaan dhihi karaa waa mas-uuliyad adig ku saaran maadaama aad tahay qof Soomaaliyeed oo wadankii jooga oo haddana wadankii wax ku bartay yacni waxaan u arkay inay mas-uuliyad saaran tahay oo yacni beri ka maalin haddii aan dhinto yacni wax laygu soo xasuusan karo ama wixii ma taqaanaa bulshadayda aan u tar karo inaan u taro marka waxaan dhihi karaa qoraalkanu waxaan u arkay in yacni bulshadayda Soomaaliyeed maadaama aan qof wax bartay waqti la geliyay inaan anna cilmigii la ibaray aan bulshada uga faa'iideeyo oo yacni aan u soo gudbiyo buug uga dhigo anoo heli kara inaan shaqaysto anoo heli kara inaan fursado kale ka faa'iideysto haddana waxaan iri adoo wax kasta samaysan karaa qoraalkan ku dhex jiri kartaa marka hawlahaaga isku wado marka qorshuhu saas waay walaal عبد الفتاح وعن صمينا سؤال هديك هو سؤالها وين لا تجي سؤال عبد الفتاح وهكا إخرى وإناد وحكتت بعد وحو قرطي لكن مركان نراهنا التارجت جروب كاغا كوحدة آد بيكستت آد أسوق الاندارتي ياد وحو قرطا وسؤال في عن مركا قرات هاي أما آد وحقوريست يعني ujeedada leedahay ama qoraalkaagu waa inuu ujeedo lahaada aniga qoraalkayga waxaan ugu talagalay qof kasta oo Soomaaliyeed oo aqoon-yahana wax bartay oo baan ugu talagalay gaar ahaan waxaan ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada yacni inay buugtayda yacni ay wax ka faa'iidaan marka qorshaha ama ujeedka aan leeyahay waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed
dhallinyaradan ugu talagalay buugteeda inay wax ka faa'iidaan su-aashayda aniga marka halkaasaan ka bilaabo markii aad buug qoraysid markaad buug qoraysid dabcan dad waxaan aqaanaa oo anigu waan sameeyaa artikala qoro oo website ku qoran dad school homework loo soo diray oo la yiri report soo qor ama darsigaa wax ka soo qor dadka qoraana ma ogtahay waa adiga wax kugu dhalanayaan adaa imtixaanka isa siinaya moogta adaa shaqada isku diraya marka maxaa kugu dhalaya sidee bay ku dhacday inaad tiraahdo maanta waxaan rabaa buug noocan ah inaan bilaabo intaasoo bood iga qaadanaysa laakiin buug noocan aan gelayaa arrimahan baan rabaa inaan wax ka qoro sidee baa u baadhaa bal inooga waran processka bilow ilaa dhammaad markaad buug qoraysid fikrad see kugu dhacdaa see u raadisaa qalin iyo xaashi baa ku qortaa inoo dulmar adigoo u sharaxaya dad dhalinyaro oo raba inay noqdaan qoraa waa su'aal fiican guuleed kolay dadku habka ay wax u qorayaan way ku kala duwan yihiin ka ani ahaan iqra ahaan bilowgaba yani buugteedu marxaladay ku yimaadaan ama ujeedaa ka dambaysa in aan wax qoro saddex buug baa hadda soo baxay oo banaanka yaallo saddexdaas buug mid walbaana sabab ayaa keentay inaan qoro tusaale buugga barwaaqo laga baahan yahay yani Soomaaliya guud ahaan waxa yaallo khayraad oo noocyo fara badan leh dhalinyarteenu yani wax badan kama oga khayraadkaas iyo waliba yani uu dhulkeenu leeyahay marka wax badan markii aan fiiriyay dhalinyarada iyo waaqaca hadda jira iyo inaysan wax badan ka ogeyn khayraadkooda waxa igu dhalatay in aan buugga barwaaqo laga baahan yahay ikhtiraacno oo aan u soo qoro dadka inta badanna marka aniga aan rabo inaan wax qoro horta yani waxa haysatid ayaa wax lagu bilaabaa yani haddaa computer heli kartid waa alxamdulillah haddaa buug haysatidna waa rabbil caalamiin hadda waxa haysatid ayaa wax lagu bilaabaa aniga marka aan hadda buuggan oo kaleeto bilaabayay marka hore waa inaa ciwaanka heshaa yani ciwaanka adoon haysana dee waxba ma qori kartid waayo targetkaaga ama ujeedkaaga ma cadda marka buuggan barwaaqo laga baahan yahay markaan arkay in dhalinyaradeenu ay wax badan aysan ogeyn khayraadkooda aysan aqoon u lahayn aysan dhulkii yani Soomaaliyeed aysan kala garanaynin saasuu ku yimid saasaan ku bilaabay muddo 2 sano iyo jajab ah adii 2 sano iyo bar meelahaas iga qaatay yani qoraalkiisii 2019kii dhamaadkeedii baan ibafur u sameeyay ama bandhigii ugu horreeyay aan sameeyay 12 magaalo oo Soomaaliya ka mid ah ayaan gaarsiiyay oo aan bandhig uga sameeyay buugganna guud ahaan waxa uu ka hadlayaa khayraadka dalkeena ama khayraadka Soomaaliya hadday noqon lahayd kii beriga iyo kii baddaba labadaba wuu u sharaxayaa wuxuu xoogga saarayaa khayraadka beriga sida aad tusmadiisa ka arki kartaan yani waxaan ku soo qaatay khayraadkeena horta waxa uu yahay inta uu qaybsamo iyo sida aan uga faa'iideysan karno iyo sidoo kaleeto khayraadkaas inta laag inaan haysano oo haddana aan nahay dad baahan sida magacaba ka garan kartaan oo barwaaqo laga baahan yahay marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd inaan ku dhiirigeliyo bulshadeena Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama la dhaho dhalinyaradu waa mustaqbalka biri in ay iyagu ay bartaan khayraadkooda oo maanta ama biri yani ay dadka kula xisaabtami karaan inay dhigi karaan yani dhulkeena sidaas waaye deegaan kasta waxaasuu caan ku yahay ama waxaasa u baxa yani ama waxaasuu dhaqaalihiisa uu ku tiirsan yahay dhulkeena intaasoo meelood ayaa shidaal ku jira intaasoo meelood ayaa macdan leh yani guud ahaan Soomaaliya oo dhan 18 gobol ee Soomaaliya mid baan u dul istaagayay mid walbaana waxaan sheegayay yani waxa uu gaarka ku yahay ama waxa uu gobolada kale kaga duwan yahay alxamdulillah yani waxa dhihi karaa meel fiican waa uu gaaray inkastoo weli aysan gaarin meeshii aan ugu talagalay 18 gobol oo Soomaaliya inaan gaarsiiyo aan ku hanweynaa laakiin hadda waxaan dhihi karaa meel fiican ayuu gaaray markaa tahay qoraa arabtid inaad wax qortid wax soo saartid waa inaad horta marka hore tahay qof wax akhrista yani haddaadan waxba akhrisan
ama aadan akhrista ahayn waxba ma qori kartid midda labaad yani waa in ay jirtaa baahi ah waxaad u qoraysid ama wax inay xallin karto xal adoo raadinaya marka sidaas ahayd bilowgii iyo dhammaadkii buuggan aan uu igu dhashtay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa dib igu soo celiyay feedback ama markay soo akhristeen oo aad yani ugu hambalyeynaya inay wax badan ka barteen buuggan wax badan aysan ogeynna oo awal aysan ku baraarugsanayna uu u ifiyey marka saas ayaan dhihi karaa ما يصير عن السؤال بان ربا إن كل علي عبد الفتاح كان حكيليا بوجا برواقة كان ليسي إن ماشى أنا قاعد وليا بيوحد سوبر تيقاب نولد شمبرها مركا قرني خيرات كإيو حولي دولتي قرني إن بدينا قرني سلابات أبدا بقشي وأصوب علي قاب نولد كشمبرها شمبرها إنتين نوع بتصوفي ريسي بل أنت إنه ظلمة. هذا ما تنتهي. مرة بعد يعني مركز ربطت أنا وحقرتد وحواي وأنا هرت على ده هي يعني وح جلال قلنا قتد أما مال يعني وح كان وح أدي أبوري سد معها أما شيء كفنات يعني أدي كإيمان يسمعهن وعلمي ونوح أباهن يعني تحرع إنه ليه هاي شمبرها مركز كهلي وح بدنا يا بارتان سميي wax badan ayay Shimbiro yani inoo leeyihiin faa'iido aaminsan oo quruxdu ay ka mid tahay macna baaritaano badan ayaan sameeyay oo yani ku saabsan cilmiga shimbiraha ama dad wax uga qoray ama dad waxyaabo hore ka qoray Soomaaliya way jirtaa dad badan oo xanaaneysto oo shimbiro badan oo kala nooc ah oo waliba markay aragtid aad ula dhacaysid quruxdoodana way jiraan marka meeshii waxa waaye baaritaan markaa samaysid oo dad badan yani markaad buug raadisid ama internetka laftigiisa ah xog ka raadisid wax badan aad helaysaa marka saasay ku timi su'aalahay bal inoo sharax qaab nololeedkooda wax inoo dulmo shimbiraha anaga inay duulaan baan aragnay bal inoo dulmo noloshooda sabay ku nool yihiin shimbiraha والله نولش شمبرا إنك صاد دتكو أي وده أوجيين دتك غاري أوجيين بوجنا ده قف كسو آخرستي وأوجي هاي أما وكور هلي كرا يعني سيدا بهاي إنك أكلته أما ده نولياش أكلته بشمبرو نوليين أو واحد ساس وجسي دوان أما واحد جارة ولا دي كرا واحد شمبرو وجدوين يعني حيوانات ككلته ما لها لكن شمبرتو يو قفك شمبر هيستاي قفك دجاجات هيستاوا ده لو هو شمبرة كمدين يعني habnololeed koodu dad waxa jira korsada dad waxa jira oo markaan hadda buugga ka hadlay habka ay yani u tarmaan oo kaleeto ama waxa ay dhalaan oo kaleeto waxa laga faa'iido oo kaleeto xanuunada yani xanuuno waxa jira dad xiqdheerto oo kaleeto shimbiraha lagu daaweeyaa dadka inkastoo dadkeenu aysan baraarugaas lahayn marka saasaan uga baxaya ما شاء الله عبد الفتاح shimbiruhu waa siday sheegtay waa iyagaaba duni gaar ah qaarkood baa xitaa cimilada marba u guura deegaan oo soo noqda waa cajiib su-aashaydan waxay daaran tahay buuggaagii ugu horreeyey ee curad ma buuggan hadda barwaaqo laga baahan yahayba mise buug kala bugaagtaada kala keebaa ah buuggaaga curad ee ku bilowday ee ku dhihi kartaa bugaagtaadu curad u yahay buuggaygu ugu horreeyay waa buuggaygi ugu horreeyay waa barwaaqo laga baahan yahay waxa dhihi karaa waa buugga ugu horreeya waxaan dhihi karaa dhanka qoraalka waxaan dul istaagaynaa caqabadaha marka aad cilmi baarista samaynaysid bugaagta aad qortay oo dhan waa bugaag sheekafaneedo aad alifaysa maahe waa bugaag cilmi marka cilmi baaris xoog leh baad samaysay xog baad aruurisay marka
caqabadihii kugu badnaa ee aad la kulantay maxaa ka mid ahaa oo aad uga faa'iideynaysaa qalinleyda cusub aad iyo aad sideese uga gudubtay buugta markay yihiin buug cilmi ah aad qoraysid waa inaad ka taxadartaa horta waxaa qoraysid wax bulshada faa'iido u yahay xoogaha waxay la tahay farsamo khadka ah ayaa soo gashay waxaan aniga buugga hoogatus aanan garin weli baan ogtahay isha mariyey saaka markaan fiirinay arrimo cajiibay ka hadlaysaa oo dabcan waxay ka hadlaysaa khataraha ka imaan kara baraha bulshada anaga dhab tv ahaan waxaan isku daynaa inaanan noqon ogtahay dabcan dadka iska hadla baraha bulshada wax kasoo soo geliya marka waxaan rabay inaan su'aal halkaas ka weydiin oo dabcan wayna ka jawaabtay jawaabtiisay guud ahaan markaad u weydiisay way ka jawaabaysay oo tiri aniga waxaan u qoray inaan bulshada wax usoo kordhiyo marka buugga hoogatus waxaan ka arkay iqra oo ka hadlaysa khataraha baraha bulshada ay leeyihiin khataraha waxaan ka hadlay qaabnooleedka shimbiraha qaabnooleedka bulshada Soomaaliyeed inay khatar ku yihiin marka waan aragnaa weli khadkii baa wareegaya inta badan ogtahay waxaan waraysanaa dad xogaha da'ah oo khibrad nolol oo waqti badan ogtahay soo joogay oo intooda badan waxay ka hadlayaan siyaasad waxay ka hadlayaan taariikh oo dabcan dee taariikhda haddaadan u warhaynin mustaqbalkaaga iyo jiritaankaaga ma og marka way fiicnayd inaan odayaasha waraysano oo marka dadka ka hadlaya taariikhda waraysano laakiin iqra waxay ku mahadsan tahay waxay ka hadlaysaa wax hadda jira oo mogta current ah in shacabka la baro deegaanka ay degan yihiin waxay tiri Soomaaliya oo dhan 18 gobol ee horeyse u qaybsanayd kulley way martay waxay rabtaa buug inay gaarsiiso buuggan labaadna aan hadda isha carabka mariyay waxyaalo badan oo bulshada taabanaya ayay ka hadlaysaa marka aad bay u fiican tahay waana dhiirigelin aad u fiican oo dabcan dadkeenu dhaqan ahaan waa dad oral ah oo hadla marka social media baraha bulshada khatar khaas oo gaar ay nagu tahay oo dabcan hadalkiibaa sii fudaaday moogta marka in qoraal wax lagu bedelo lagana hadla khataraha ay leeyihiin baraha bulshada waa arrin aad u fiican waxa weeye waa saad sheegtay weli saamaynta ay ku leedahay bulshada iyo nolol maalmeedkeena baraha bulshada waxay saameeyeen xitaa isticmaalka iyo akhlaaqda kaliya maaha iyo adeegsiga luuqadii baa xitaa meelaha qaar ku baahdirantay wax badan oo lagu kobciyeyna way jiraan iqra wasiir guuleed baa dhowr su'aalood iyo in yaroo kooban oo buuggan saamaynta baraha bulshada aan ka hadlaynay marka hogatus guuleed su'aashaadii inta khadka aad ka maqnayd buugga hoogatus waxaan ka arkay inaad ka hadlaysay qaab nololeedka baraha bulshada bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ay leeyihiin baraha bulshada iyo social media habka ay dadka loo baahan yahay wada noolaado marka inoo dulmar buuggaasi waa chapter kala duwan arrimo kala duwan oo laakiin bulshada saameynaya ka hadlaysa marka arrinta baraha bulshada haddaad noo dulmari kartid maxaad aragtay buugga in yar noo dulmarsi dadkii moogta xiiseynaya inay ka fikireen ama ka hadlaan ama baaraan khataraha ay keeni karaan ay sheegeen baraha bulshada way maqashay Soomaa iqra waxay la tahay weli guuleed aad u mahadsan tahay buuggan waa ku maqlay soco buuggan hogad way maqashaan Soomaaliya waa ku maqlaynaa waa ku maqalnaa aad iyo aad buuggan arkaysaan hogatus waxaan soo bandhigay horta bishaan hadda aan ku guda jirno 10keedii oo bishaan bishaanan 10keedii ayaan soo bandhigay waxa uu ka hadlayaa oo
uu sharaxayaa ama aan mowduucyo muhiim ah aan kaga hadlayay waa dhibaatooyinka uu social media ku hayo bulshadeena sidaan ognahay social media waa mindi laba af leh dhanka wanaagsanna waa u isticmaali kartaa dhanka xunna waa u isticmaali kartaa laakiin ka Soomaali ahaan waxaan dhihi karaa waxa badatay dhanka yani dhibaatada ah sidaan ognahay social media dhalinyaradu horta aaday isticmaalkiisa ay u badiyeen waxyaabo badan oo aan lahayn ay ku lumay haday noqon lahayd dhaqankeeni iyo waliba diinteeni sidaan ognahay dhalinyaradu waxa uu noqday يعني waa kala qaadaya wanaaga iyo dhibaatada marka dhibaatada hadii aan ku sii socdo buugan wuxuu ka hadlayaa ama waxa ku qoran qaybteed in qoysas badan uu noloshooda burburiyay baraha bulshada in dad badan oo yani caafimaad qabay oo caafimaadkooda uu waxyeelo u geystay in yani dad badan oo mustaqbal lahaa nolosha mustaqbalka lahaa inuu noloshu ka riday oo yani uu noloshu ka dhaceen waxyaabaha aadka u qaabka daran ee baraha bulshada inta badan bulshada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee u dhibaateeyaan waxa kamid ah dhanka dhaqanka waxaad arkaysaa in dhalinyarada ay dhaqanka ka tageen inay soo minguurinayaan dhaqamo kaleeto ama dadyo kaleeto dhaqamadoodii dhanka diinta in waxa laga yaabaa inta badan dhacda in diimo kaleeto social media qaybihiisa kala duwan in diimo kaleeto lagu faafiyo in Soomaalidii iyagoon wixii cilmi u lahayn balse ay faafinayaan diimihii kaleeto waxa iyana kamid ah in baraha bulshada yani caafimaadkeena inuu wax u dhibay oo inta badan markaad aad la qabsatid isticmaalka mobilka ama smartphone-ka in caafimaadkaagii ay qilqil galayso وأناجي موقع عبد الفتاح كهذلني وأناجي كهذلني موقع إنجليزي لو هذا mental health مركا أريمها سيتابعيسي حتى أي باريتان قلبات كإنجليزيين أو لبضان سنة أو إليهين بهالكاني تلفون كلو جيرو مانتودان أو سوشيال ميديا لو جيرو إن لا وعي قليلا مركا حتى بلاغي إن لقى ممنوع iskuulada galbeedka markii dugsiga sare arimaha markii la yimaadaan way bahalkan ay wataan in laga dhigo ay soo galaan laga dhigo marka waxa uu moodaa waxay ka hadlayso oo ay soo jeedinayso anaga aan dareensanahay oo mar badan aan ka hadalnay hadiiba iyadii oo cilmi baaris lagu sameeyay oo la ogaaday khataraha uu leeyahay bahalkan social media dhinaceeda kale waa run anshaxumadaasi internetka markaad gashid caalamkii baad u jeedaa marka qofkii raba inuu wax wanaaga raadsado wixii wanaaga waa loo fududeynaya kelmad haddana isticmaalayada algorithm marka haddaad geshid social media baalkii computerkii uu fiirinaya waxyaalaha raadinaysa marka haddaad raadinaysa waxyaalaha diinta islaamka uu ku soo fududeynaya marka adoon raadin buu ku hordhigaya waxyaalo xunxun haddaad raadisid 2-3 jeer waxaas buu kuu soo hormarinaya marka khatarahaas way jiraan dadkana waa in la baro khatarahaas inay yihiin khataro joogto ah dabcan dhalinyarada dhinaca odayaashana waa anagii ka hadalnay marar badan biri moogtahay social media wax badan baa la gelin karaa siyaasadii qabyaaladii wixii foosha xumaana waa la gelin karaa odayaal badan baa naqaana cabdi fataax oo odayaal ah oo siyaasadda muddo ku jiray oo la yaqaano oo wax bartay laakiin waxay soo fadhiisanayaan baraha bulshada waxay rabaan bay ku hadlayaan qaar dad bay kicinayaan oo ma ogtahay qaarna dad bay rabaan inay bahdiyaan qaar waxaa u moodaa markii kaamirada la shido inuu qof kala noqdo marka khatarahaas way jiraan dad yar way aad bay u saamaysaa dadka da'da yar odayaashan waan aragnay oo si kale u waashaan guulida waxaa intaas dheer qofka isagoon wax reference ah wadan meel uu warkii u celiyo iyo cid uu u tiiriyo aan haynin buu wuxuu ku leeyahay aniga i weydiin
qof dhan baad arkaysaa mas-uuliyad iyo waxaad ku toomaysto xukle war anigay weydii anaaba kuu sheegayay marka ma waxyiba kusoo dega culimada soomaalida waxay arrintan aafada baraha bulshada ay ka hadlayeen muddo dheer oo xaqiiqdii dhibaatadan ay hayaan marka dadka qaar ee culimada la dirirsan waxay la soo boodayaan shuruucdani ha ku ekaadaan shaqadoodu arrintay ka hadlayaan iyo bulshada wacyigelinteeda iyo ummadda inay xumaha ka reebaan ee wanaagii faraan isla arrintaasay hadda adduunyada ay si xoog leh ugu baraarugaysaa oo arrintan taleefanada laga qaadayo carruurtoo kale iyo algorithmkan qofka waxaa tow la ogaanayaa wuxuu ku leeyahay nin anigu waxaasunbaa ii soo baxo dee hadaawan markaad tiraahidna ma daawadu ku dhahaya marka aafo xoog leh bay ku haysaa ummadda arrintan baraha bulshada ee dhibaatooyinkooda waxa waaye faa'iidadeeduna wuu leeyahay maanta wax badana laga faa'iidaystaa oo maanta AEgiibaaba adduunyadii qabsadayba oo waxaad leedahay gabayga io alif AE baaba kuu qoraayaba marka waxaan gabaygii la dhihi jiray awow baa la iska dhaxlaa AE baad u diraysaa guuleysa aad iyo aad anagaaba isticmaalayno baraha bulshada hadda anagaaba baraha bulshada hadda isticmaalayno ma ogtahay ku wada hadlayna soo dhow walaal waxaan ka hadlaynay arrintii baraha bulshada un baan sii jiidaynay khataraha iyo dhinacyada badan uu leeyahay isla buuggii haddaan su-aal kaa weydiiyo waxaad ka hadlaysaa arrimaha dhaawaca gaarsiiya lamaanaha khaasatan kuwa dadka yar wiil iyo gabar iyo marka khatarahaas oo arrimaha familiga ah oo reero kala diraya reero isku diraya dabcan dhaqan kale aysan lahayn intay ka baalkan yar oo ka arkaan ay yidhaahdaan aniga saan baan rabaa inaan u dhaqmo marka bal arrimahaasi noo dulma may maqashaan si fiican horta waa cudur daaranayaa qadkii baa iga yara culuslaaday soomaaliya iska joognaa khayraysan marka maasha allah marka su-aasha ay weydiisay yani dadka isqabaa soo saas maahayn codkaaga xoogaa dadka isqaba saameynta ay baraha bulshada saameynta khatarta ah reer bay kala goysaa dhaqan cusub baa labadooda mid baa dhaqan cusub soo qaadanaya markaasi qofka kale ula imaanaya ciyaalkii iyo waalidkii baa kala fogaanaya marka saameynta aad ku xustay buugga inoo dulma aad iyo aad saameyn horta aad u ballaaran ayuu baraha bulshada waayadan dambeeto oo qoysaskeena u keenay tusaale waxaa ka mid a haddii number 1 aan dhaho labadii lamaane oo isqabay oo xalaasha isku ahaa waqtigii ayuu ka dhumiyey sababtoo ah waqti inaysan isku helin ayaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa in gabadhu aysan waqti badan siin ninka ama ninku inuusan waqti badan siin gabadha inta badanna dee labada qof hadday wada nool yihiin waxaa la rabaa in yacni waajib waayaba in waqti la isa siiyo midda kaleeto waxyaabuhu naga dhex abuuray ama qoysaskeena ka dhex abuuray waxaa ka mid ah kalsooni darro sababtoo ah gabadhu mar walba ama wiilku mar walba waxa uu ku mashquulsan yahay oo waqtigiisa uu ku bixinaya waxa waaye baraha bulshada marka qofkiina dee yani markaad aragtid qof 24/7 adig kaa mashquulsan oo yani taleefon ku mashquulsan waxaad dhehaysaa qofkan aniga macnaha imaba rabo miya qof kale miyuu rabaa yaa la hadlaysa yani dhibaato ka dhex abuuraya sidaan ognahay faamiliyada isqabaa inta badan hadda waxay aad u soo kordhiyeen oo dhibaato ah in kaamiro la iska daba wado uu qofku noloshiisii qaaska ahayd noloshii guriga loogu talagalay noloshii yani ilaahay ba yidhi ha la qariyo in banaanka la keenayo waxaa arkaysaa qofkan tiktokta ku jira ama meelaha kale ku jira in annaga oo banaanka joogna oo aanan aqoon in noloshiisa dhan aan ka warhayno taasna waxaa keenaysa inuu isagu noo soo bandhigo marka waxaan dhihi karaa waa dhibaato weyn midda kaleeto waxaa jirta in ninku iyo naagtu marka ay kala tagaan ama ay nolosha ay isku fahmi waayaan in labadan qof wixii dhex mari jiray ama xaaladihii dhex oola ay dhammaantood midba midka kaleeto isagoo ku xumaynaya in banaanka lasoo dhigo
oo qofka kaleeto isagoo hadhow ku ceebaynaya ama isla ku dhaleecee inuu banaanka ay yimaado taasna waa dhibaato weyn oo qoysaskeena ay waayadan dambe ay dhaxal siisay isticmaalka tirada badan ee baraha bulshada inta badan dadkeenu dhalinyarada Soomaaliyeed waxay aad u isticmaalaan TikTok iyaga oo ka raadinayeen nolol ka duwan nolosha ay ku jiraan sidoo kale waxay isticmaalaan Instagram marka qofku isticmaalayo waxa uu raadinayaa nolosha uu ka dhax arkayo Instagram-ka inuu helo ama nolol noocaas oo kale taa inuu ku noolaado marka inta badan qofka waxa ku abuurmaayo walwal iyo raadin wax badan oo ka maqan inuu raadiyo ama nolol uusan haysan oo khiyaal ah oo malawaal ah oo وصح ما شاء الله مقدشي جوجتا عاصمتنا جوجتا aniga dawladda waa ku jiray marka arinta isgaarsiinta culus aniga ay dhibaysaa marka soo dhow iqra ku soco hada meesha library-ga aan joogana meel god ku yaala isna culayskeedaas uu wataa raalahaada maya dhib maaha صعب dib ma laha wasiiradii waxaan haynaa arinta ku shaqada laha aad iyo aad si hoosan ula hadli doonaa marka familiyadu dhibaatadaas yani ka dhax abuurantay marka waxaan aaminsanahay wanaagna waa leeyahay ama faa'iido waa uu leeyahay haddii faa'iidada aan hal iyo laba ka sheego baraha bulshada hadda yani waxa ka furan Telegram-ka oo kale waxa ka furan madaaris ka furan cilmiga lagu barto maadiga iyo diinigaba qofku isagoo gurigiisa joogo oo si lacag la'aan wuxuu ku baranayaa inuu cilmi barto noocu doonaba ha ahaadee taasina waa faa'iido weyn oo aan ka dhaxalnay baraha bulshada sidoo kale waxa ka mid ah in yani qofku Facebook ama YouTube-ka ina ka heshid cilmi badan يعني dad wax qoray qof Facebook oo kale maqaalo yani la qoray oo yani faa'iido badan ku yeelanaya ama xog aan raadinaysid dad hore inay wax uga qoreen oo kale YouTube-ka oo kale inaad luqadda English-ka oo kale hadaa rabtid inaad baratid si fudud oo easy ah ku baran kartaa adoo gurigaaga jooga hadaa baratid xirfad inaad baratid oo ku shaqaysatid haday ahaan lahayd Photoshop-ka tusaale adoo gurigaaga jooga ayaa baran kartaa marka waa mid laba afle faa'iido iyo khasaaro hays wataan inkastoo khasaaradu ay badan tahay laakiin waxyaabo badan oo faa'iidana waa ka dhaxalnay oo aan ka faa'iidnay dadyo waxa jira xataa luqado badan bartay oo qof oo Soomaaliya aan ka dhax bixin oo Soomaaliya joogo oo 4 ilaa 5 luqadood ku hadlaaya ayaa jira taasna waxa sabab u ahayd ku milanka ama isticmaalka baraha bulshada marka waa labadii dhinacba faa'iido khasaaro way wada socdaan ما يصير عن وقت كان واصل على وحان روا مركا بوق السدحات إنا أقولنا مركا دان بلو وحان كهذا الله بوق قاعد كهذا ليسي خيرات كنا لول أهان إني البطن نوات هاوتي شمبرينا وحان كهوريسني كدبنا وحان كهذا أريمها بالشدة أريمها قويسك أريمها دنيرة يد برها بالشدة أنت بدنا هذا وياهن سامين أبو ترى بدن وانا library sida sheegtay khatarna uu yahay marka qofka asaga is og meel haduu daciif ka yahay inuu iska ilaaliyo waxyaalaha khatarta ah way fiican tahay waxaan rabaa marka bulshada markaan galnay inaan dhinaca kale bulshada u eegno book baad qortay hadda meesha ka muuqda hogaamiyo lagu hodmay marka bookani waan aragnaa madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa ku sawiran calankii Puntland baa dhabarkiisa ah buugani marka hore inoo dulmar arrimaha ka hadlaysid buugan iyo maxaad rabtaa in laga faa'iido mar kale aad u mahadsan tahay buugan waxa la horta markiisa koowaad hogaamiye lagu hodmay ayaa la dhahaa waxaan ugu talagalay ama aan ka qoray Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland weli ma uusan soo bixin sida aan ku rajo weynahay dhawaan inuu soo bixi doonaan rajaynayaa laakiin yani waxaan ugu talagalay bini aadan ayaan nahay waxa la yiraahday qofkan bini aadamka u mahad celin ilaahayna uma mahad celiyo yani Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland wax badan uu qabtay ayaa jiro Puntland shalay meel ay joogtay maantana meel ay joogtaa yani waxaan ku soo koobayaa 5 sano oo xilka hayay oo wuxuu Puntland u qabtay
hadday noqon lahayd dhanka dimuqraadiyadda hadday noqon lahayd dhanka waxbarashada dhanka arrimaha bulshada dhanka dhaqaalaha yacni guud ahaan waxa uu kusoo kordhiyey ama waxa uu u qabtay deegaankaas uu madaxda u yahay waana madaxweynihii ugu horreeyey oo maamul goboleed oo mar labaad isku soo sharaxa ama mar labaad yacni la doorto mar labaad soo laabta marka buuggan waxaan aad uga hadlayaa 5 sano oo hore oo xilka hayay waxa uu Puntland u qabtay iyo waxa uu gaarsiiyay iyo yacni ballanqaadkiisii hore yacni maxaa ka dhaboobay maxaa yacni xagee yacni maxaa dhaboobay maxaa anaga maadaama aan nahay bulshada Soomaaliyeed maadaama aan nahay dad ka soo jeeda deegaankaas maadaama aan nahay dad yacni wixii uu qabtay u jooga anigoona dee nin jacayl iga ahayn ama taageer madaxweyne iga ahayn kaliya waxay iga tahay waxa madaxweynuhu qabtay sax iyo qalad muxuu qabtay muxuuse ka tegey صح halkaasi adoo ka sii wada arrimaha horumarinta dhalinyarada baan ku arkay inta inoo dumar kadib cabdifatax baan kusoo wareejin dee waa yahay dhalinyarada wuxuu u qabtay 5 sano ugu horeysay horumarkii uu dhalinyarada u sameeyey ama adeega dhalinyarada uu horumar gaarsiiyey inoo dumar kadib cabdifatax soo dhawow guuleedu ciladka mar kale ku timid waxyaalaha cajiibka ah ee buuggan mararka qaar marka qof siyaasi ah wali wax laga qoro inta badan waa lagu kala duwan yahay aragtida laakiin waxa cajiibka ah buuggan wax ka badan in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayuu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah dhismihii dowladda Puntland shirar badan bay soo qaadanaysaa doorashooyinkii ilaa federaal saameynta yani madaxda Puntland Cabdeni iyo federaalka marka waa kayd taariikheed taariikhda casriga ee hadda socotay dhigmaysa dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya berrina noqon doonta raad raac laga faa'iidi doono marka xaqiiqdii markii laga tago in annagoon si gaar ah cid gaar ah u taageeraynin buugga inta aan ka akhrinay iyo inta aan ka helnay xogtiisaba waa buug dhaxal u noqon doono in mustaqbalka loo isticmaalo in warbixintii iyo xogta uu xambaarsan yahay wixii lagu radiyo waa arrin kale laakiin wax badan baa ku jira marka waa sida way fiican tahay waxaa jira adaa waday saaxiibkeen haldhaa oo aan weli keenin Lab TV qoraa weyn Maxamed Cabdi Madar haldhaa oo isaguna sidaas la mid ah madaxweyne Axmed Madoobe ka qoray marka isagana waa buuggaasi baan insha Allah markaan helno nuqulkiisa ayaan insha Allah mar diiradda saari doonaa barnaamijka doonaa waa tii wasiirkii injineer عبد عاشور isagaa qorayba عبد عاشور isagana waan sugaya ambassador kana waa keenayba ambassador maxamed cali amiir waa dhaxal u qaraya bulshada haduu ilaahay insha Allah really hogaamiyaha siyaasadeed in waxqabadkiisii wax laga qoro isla markiina lagu qiimeeyo marxaladii taagnay berri waxbaa laga baranayaa anagana waxay noo tahay xasuus dabcan inta badan Soomaalida hadda waxay yiraahdaan hadda Soomaaliya iyo sida Puntland iyo Galmudug iyo Shabeelle iyo Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Banaadir runtii iyo dabcan dhinaca waqooyiga Somaliland la yiraahdo meel fog baa laga keenay waan run dalkii waa u burburay waxbarashadii baa waxay noqotay in dib loo soo abaabulo dowladnimadii baa waxay noqotay in dib loo soo abaabulo maalin kasta tilaabo la qaadayo marka in la xuso hogaamiye siyaasadeed ama nin madax ah ama qof madax ah ka waxa noqotay xilkii intuu qofkaasi xilka hayay shaqaduu qabtay horumarkuu gaaray iyadee moogta ballanqaadyadii uu sameeyey u suurtoobi weeyay waa in la xuso ballanqaadyada hadday suurtoobi waayeen sababooyin far badan weeye moogta waxaa laga yaabaa ciqaad inuu la kulmay waxaa laga yaabaa arrimo uusan ka fikirin inuu la kulmay
waxaa laga yaabaa waqtigii inuu ka dhamaaday marka wax fiican hadda galbeedka haddaad fiirisid ilaa hadda buugaag baa laga qorayaa dad 500 oo sano ka hor hogaamiye ah marka sababta loo qorayo wax kale ma ah waxaa la xusayaa xilligii uu qofkaasi madax ahaa arrimihii jiray kadibna waxaa la rabaa in la tuso silsiladaas taariikheed oo dabcan waxyaalihii dhici jiray tallaabooyinka 100 sano ka hor la qaaday saameyntii maanta nagu leeyihiin marka ninkii oo weli ama mas'uulkii oo weli xilka haya in lagu qiimeeyo shaqada uu qabtay 2-3 sano ka hor ilaa maanta silsilad gaaban weeye laakiin weli waa isla arrintii moogta soomaalida waxaan nirahnaa goormaan kala tagnay markaasaa hadla sheegi karaa 100 sano ka hor waxaasaa dhacay 200 sano ka hor waxaasaa dhacay galbeedkii gumaysiga waagu dad baa ilaa axmed gurey gaarsiinaya oo anagii waraysanay odaygii aqoon-yahanka canfarta ahaa oo yiri axmed gurey waa nin canfar ah oo dabcan taariikhdaas marka fiiri taariikhda haddaan la qorin nin kasta soo raba u qoranaya marka wax aad u fiican qofka hoggaanta haya in la xuso wuxuu ahaa xilligii uu hayay iqrana way soo laabatay sii wad walaal meesha ka waday ka sii wad adoo ka hadlaya nidaamka dowlad dhiska iyo horumarka dowladeed uu Saciid gaarsiiyay Puntland aad iyo aad mar labaad oo cudur daaranaya marka buugu jeedkaas ku yimid يعني qof kastaana ama mas'uul kastaana meeshuu doona ha joogay waa uu mudan yahay haddii uu wax qabto in la dhaho madaxweyne waxbaa qabatay waa mahadsan tahay waxna waa ka tagtay waxaasaa ka tagtay يعني bulshada loo iftiimiyo marka buuggan si guud waxaan uga hadlayaa waxqabadkiisii noocay doontaba ha ahaato saan ognahay waxaa kaloo ku jira madaxweynaha taariikhdiisii macnaha ilaa marka uu dhashay meesha waxbarashada ka bilaabay ilaa intuu taariikhda ku jiray waxyaabihii uu yani soo kordhiyay ama waxyaabihii uu qabtay sidoo kaleeto waxa qayb weyn ka ah iyadana in Puntland ay tahay maamul marka Somaliland laga yimaado maamulka ugu horeeyay oo doorasho qof iyo cod ah qabta oo 36 degmo oo kamid ah Puntland in doorasho qof iyo cod laga qabto oo tii shalaba ay u dambayso marka si guud saasaan uga hadlayay buugu intaas oo daarnaa ما شاء الله ما أدباد وما هتصنتهاي وحن كلون عرقنا إن تاريخ بدن أو هيراركي ومامل كصومري إيا سامينتي إذا الذي بنتلان أي أوجش حتى نظام كفيدرالك سيدو كالحرير ككرده يا سامينتي دني مركا لتابتو نظام كتابنا يا نظام كمركا لتابتن دو سومالي ساسي يسو ساميساي يسو تابنا يسا سؤالها وحن وجد بين إقرأ جبدي برنامجك خدك وحقينا حوجا وليس بدنا كجرة سؤالها عن بدنينه إلا صدح أفر سؤالات أيام كسو حرينا إن شاء الله حد مجرى بوق أرجعنت كويسيت أنا هين بوق أنا هذا دابع عادة كم عن هو جميه لقو هضمي هدو جرو نوجا ورن هذا أدو وحير ندرسينا يسي عن حيسيه سوسوي كروينه هذا أمها سنتها أبوه يعني وقتي هذا أن شوقه ما تشرو بوك صوص على صوته بوك قدام بيجي هذا واحد صوبان دقي دور بريكور مركا بوقات دم إن يعني واحد دم عن قردونه يعني أما عن كيف كردونه وجهته لكن واحد هذا صوص على أما بلوين كان أما سنة كم بتشرته سفي عن بوق هذا داعيسيد بل إنه دول مرة ضبان ويال بدن يدان يران أبنهاي أو مقدسة إيو سوماليا دين عوال بتشوغا أو كوهن قضايني بوق طبعا كما سوقات بوقي وابا داي باريتان كي واد سميسي واد سوق قرطي وكو ديار بروسيسكا بوقي وكو ديار سوق قرال لكن دابعادي وبوق كل نقضي حقيقة الأمرتا مديبدا الله داوعة مسومالي بديها الله داوعة dadka daabacaya kharashka maayiga qabta si hadhowtii wad u celisaa dhinaca businesska inoo dulmar qof hadduu rabo inuu buug daabaco isagoo Soomaaliya joogo
aad iyo aad laba qaabba yani qofka buugu u daabacan karaa qofna dee aadba awoodiisa ku xiran tahay qofka iyo dhaqaalihiisa qofna dibadda uu kasoo daabacan karaa qofna dalka gudihiisu ka daabacan karaa oo muqdisho ka daabacan karaa muqdisho waxaa jirta yani lacag baa bixinaysaa xataa buugga waa lagu tafaftirayaa coverka lagu samaynayaa wax walbaa lagu samaynayaa waxaasoo dhanna waxaa kaa xigta keliya inaad lacag bixisid oo aad meel madbacada raadsatid marka xamar markaad joogtid inkastoo dibadda ay kaga duwan tahay tayada buugga soo baxaya haddaad rabtid inaad dibadda u daabacatid waxaa laga yaabaa buugaagta banaanka lagu soo daabaco oo kaleeto 1000 buuga u yar ama 500 buuga u yar waxaan laga yaabaa qoraago inuusan awood u helin ama aysan tabartiisa ahayn inuu 500 buug daabacdo laakiin xamar markaad joogtid 100 buug 50 buug inta rabtid ayaa daabacan kartaa tabartaada yeysan adiga ku xidhin waaye marka halkan ka daabacdid inta badan shuruudana waa jiraan marka daabacanaysid in qofka buugga loo sii daabaco oo la dhaho markaad soo bandhigtid kadib lacagta iska bixi iyo in la dhaho yani hadda buugga lacagta iska bixi taasina way meesha waa ku jirtaa sidoo kale to daabacado waxaa jira dhahaya buugga 50% qoraaga ha qaato lacagtiisa 50%na madbacadda iskale oo si free ah loogu daabacaya saas maktabado u dhaqma ayaa jiro marka qofkan iyo sidii uu rabo isagay ku xiran tahay inkastoo kuwa hadda Soomaaliya aysan lacagtoodu la dhigi karin lacag aad u badan waaye lacag yarna aysan ahayn laakiin waa iska qofku wuxuu ka bixi karo haddii uu dadaalo ama uu raadin badan sameeyo marka saasay ku kala duwan yihiin laba madbacadu waxaad hore barnaamijka noogu sheegtay inaad gobolada waddanka martid bandhigyaad samaysaa buugaag meelo badan aad buugaagtaada kusoo bandhigtaa anigaba waxaan kaa soo dhex helay xiriirka qoraayada iyo bandhigyada ama iska soo dhex helnay aan iraahde akhristayaashaada dabcan falcelin baad kala kulantaa horeyna waad u sheegtay barnaamijka laakiin falcelintii ugu adkayd ee aad la kulantay iyo tii ugu quruxda badnayd haddaad xasuustid labadaba nala wadaag ee aad kala kulantay akhristayaasha horta aad iyo aad markaad rabto inaad wax soo saarto oo rabto inaad bulsho la hadasho ama la hadal ama buug kula hadalo qoraal kula hadale falcelin way imaanaysaa horta buugayga kii ugu yani daabacaadda badnaa ama ugu bandhiga badnaa barwaaqo laga baahan yahay ayuu ahaa inta badanna falcelinihii aan kala kulmayo waxay ahayd falcelin wanaagsan iyo dhiirigelin iyo ducay ahaayeen inta badan laakiin buuggii ugu falcelinta badnaa oo xataa aan dhihi karo waa buug aan ka qayliyey wuxuu ahaa buugga oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni hogaamiye lagu khudmay inta badan Soomaalidu waxa la dhahaa waa seeflabood ama yani waa indha ku garaadlayaal yani buuggii ama iyagoon arkin wixii ku qornaa coverka kaliya ay arkeen xaqiiqatan waxaan dhihi karaa wax badan baan kala kulmay wax badan dad badan ayaa xataa waxaa jiro markay saas u arkeen oo yani dee madaxweynaha si kaleeto ama aragti kaleeto iyagu isku haayeen miya ma aqaan dad badanaan marka fariimo iisoo qorqorayay dad wanaagsan oo dhiiri gelinaya oo dhahay shaqo wanaagsan aan qabatana way jiraan marka buuggaana ugu fariimihiisu ay ugu badnaayeen ayaan dhihi karaa waxa waaye nin durbaan qaatay waxaa la yiri ilaaq dalbay adaa durbaanta Soomaha adaa durbaanta qaadatay siyaasad bad wax ka qortay laakiin dhiiranaanta waa lagu dhiirigelinayaa waana kugu amaanaynaa runtii waa qofuun inuu qoro waana in la qoraa waa dhaxal u haraya ummadda Soomaaliyeed qoraayada ka dambeeyay u taalaa inay iyagana ay baaraan iyo taariikhyahanada wixii markaa ay ka helaan iyo wixii ay ka saxaan dad baa isweydiiya bilowga horena waxaad sheegtay qofka wax qoraya waxaa uga horeysa akhrin badan qof aan wax akhrin wax ma qoro marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri alladii callama bilqalam baa ku callama al-insaana maa lam yaclam marka qofka wuxuunan aqoonin inuu barto waxaa ka horeysa inuu wax akhriyo wax qoro uu wixii barto iqra bismi rabbika alladii khalaqa al-insaana min calaq iqra warabbuka al-akram alladii callama bilqalam aqrinta iyo qorista iyo cilmiga ilaahay bani aadamka baray marka waxaa looga qaadanayaa meeshaas in tacliintu ilaahay noo dhigay adduunka annaguna inaan adduunka maamulno si wanaagsan u maamulno marka qofka raba in uu barto ama uu noqdo qoraa
ayaan u soo furfurinay ma la baran karaa iskuul ma loo geli karaa xirfadda qoraannimada adigase maxaad kula talin lahayd qoraayada cusub adoo markaa si waadix ah insha allah qaado waqtigaad u baahan tahay aada u mahadsantahay cabdi fataax qofku wasaan hore u sheegay markuu rabo inuu wax qoro waa inuu wax badan akhriyaa hab qoraalkana de yacni qof wax ku dhashay ma jirto qof walba waxay ku xiran tahay dadaalkiisa iyo yacni habka baaritaankiisa intuu baarid samayn karo qofku markuu rabo inuu qoraal noqdo ama inuu rabo inuu bulshada wax u soo gudbiyana waxay ku xiran tahay keliya inuu laba mid iska saxo ama iska hagaajiyo inuu waxa kan yacni shuruudaha wax kasta shuruudo ay leeyihiin ama habraac ayaa jira la raaco oo qofku markuu qoraal noqonayo inuu wax badan uu bartaa la rabaa marka alxamdulillah hadda muqdisho way jirtaa meelo badan oo ama qorayaashu aad ugu badan yihiin qorayaal badan ayaa jiro oo yacni si yacni free ah dadka u bara in habka qoraalka xataa buug waxaa jirto la qoray qofku markuu rabo inuu qoraal noqdo buug la akhrisanayo tallaabooyinka mudan in la qaado si qoraal loo noqdo marka kaliya waxay kaga xiran tahay ka go'naansho qofka inay isaga ka go'an tahay oo isaga uu rabo waxa kan sidoo kale inuu xiisaynayo qofku wuxuusan xiisaynayn ama uusan rabid aysan jirin baadaysan rabid jirin waxa ma la qaban karo marka waa inuu qofku waxa kan ay ka go'an tahay oo rabitaan uu jiro kadibna in uu baaritaan sameeyo oo habka wax loo qoro iyo tallaabooyinka la qaado iyo inuu soo akhriyo ama uu barto kadib ciwaanka hadduu haysto wax walba wuu qori karaa wax walbaana wuu qaban karaa marka intaas uun baan ku soo koobaya maasha allah guuled maasha allah aad iyo aad ba u mahadsan tahay dhammaan shacabkan daawanayna waxaan rabnaa inaan xasuusino mar walba isku daygeena ayaa wuxuu yahay inaan diiradda saarno luuqadeenna anaga dibaddaan joognaa dagaalkan ku jirno waa dagaal aad u adag oo anagii naftarkeena baan u baahan mar walba inaan luuqadeena kusoo laabanno ciyaalkeenana waa culays ka saaranna lama qiimayn karo oo maalintii 8-9 saacadood bay kaa maqan yihiin luuqad kale ay ku hadlayaan dhaqan kale ay dhex fadhiyaan dhaqankiina kama tirtiri kartid oo waa qof wax lagu shubay marka dadkeenii Soomaaliya jooga ama geeska Afrika jooga oo dhaqankii iyo luuqadii dhex fadhiya mas'uuliyadda saaran ayaa waxay tahay in dhaqankii iyo luuqadii moogtahay adkeeyaan oo noo xajiyaan anagana aan in yar ka dhuuqno marmarkaan u baahannahay xasuusintaasna u baahannahay maanta anaga sharaf waxa inoo ah inaan wareysano iqra Saciid Xasan oo naanaysta awowgeed noo sheegtay cayn iqra la yiraahdaa waana qoraa marka maasha allah aad iyo aadna u mahadsantahay walaashay waxaan leenahay 3 buug bay ilaa hadda qortay buug saddexaad uu soo baxayaa mar dhow dee waxaan rabnaa inaan buugaagteeda la gato qofka qoraa waa in la dhiirigeliyo ugu yaraan waa kharashkii ka baxay in loo soo celiyo waa macallin mushaar la'aan ku shaqaynaya marka mar walba in moogtahay dadkeena aqoon-yahanada ah la dhiirigeliyo siiba dhalinyarada oo dadka dhalinyarada ah ama dhalinta ah ama soo socda oo hadda soo gelaya in jiilba jiil wax uga tago anagu si haddaan isku eegno waa jiil baa naga horreeyey jiilkii naga horreeyeyna dalka meel bay gaarsiiyeen ummadda meel bay gaarsiiyeen marka anaga mas'uuliyadana saaran ummaddii meeshii la gaarsiiyey inaan haddana dib u soo laabano kor u soo qaadno marka aqoonta ayaa waxay tahay arrinta koowaad markii dal la burburinayo haddana in yaroo siyaasad galo oo dabcan siyaasadda kama fogaan karo laakiin dal marka la burburinayo aqoonta marka ugu horeysa la curyaamiyaa waxbarashadii baa la curyaamiyaa waxbarashadii baa laga dhigaa waxaan macno lahayn dalka marka uu soo noqonayana waa in waxbarashada xoog la saaro tusaale waxaa noo ah yurubtii burburtay oo dagaalkii adduunka labaad wadamadii durba soo kacay waxay ahayn wadamadii waxbarashada xoogga saaray wadamadii ilaa hadda dhutinaya waa wadamadii ku doodaya luuqadee wax ku baranaa laakiin luuqad kasta wax ku baran kartaa marka anaga luuqadeena waan haysanaa mas'uuliyad ballaaran wayna saaran tahay dabcan xitaa buugaag jira oo galbeedka luuqada kale lagu qoray af Chinese lagu qoray inaan af Soomaali ku qorno ku turjumno taasi waa mas'uuliyad kale oo aqoonta la kala qaato marka aad u mahadsantahay walaashay iqra cabdi fataax adaa barnaamijyadan sirta qalinka ah hadda kii 11 hadda galayna dhamaynay
هذا أضينا وجوها مركب برنامج هذا صوحي يقولوا waxaan u malaynaynaa mar kale cillad farsamo ayaa xaggooda ka taagan barnaamijkana maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa xalqadii 11aad oo ku suurta gashay idinka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa barnaamijkeenii sirta qalinka oo aad kala socoteen dhab TV waanigoo ah cabdifataax baana caymuun iyo wasiir guuleed qaasim oo barnaamijka si joogta ah oo hagar la'aan ah idinkula soo socodsiiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhab TV hagaha hiigsiga humaaga hirka